deeni hore aynu ku soo qaadanay hadda setup-kan aynu samaynay wuxuu ahaa xiisadii jimcihiisii buu ahaa ruleskeena waxaa ka mid ahaa in number 1 uu yahay trend line-kan in marka la jebiyo trade-ka uu yahay ruleka ugu horeeya ee laga eegi doono markasta trend line-kan markii trade-ka la soo diray line-kan vertical-ka ah waxaynu u soo qaadanay in aynu ogaano trade-kan markii la soo diray meesha uu marayay muxuu ahaa qiimaha suuqu price-ku meesha uu marayay baynu halkaa u dhignay waxaanu aragnay trend line-kan in qiimuhu uu 2 jeer taabtay markii kor aaday in trade line-kan announcement-giisa la soo diray Bonsibago uu soo diray uu yiri sell ahaan waxa jira chance aad u fiican oo AUDJPY ay noqon doonto waqtiyada soo socda sell oo lagu faa'iideysan karo marka sidaa daraadeed inaga oo raacayna ruleska baynu waxaanu samaynay trend line-keeni qiimaha waxaan calaamadsanay markii la soo diray meeshu marayay waxaynu sugaynaa waxa weeyaan meeshii laga jebiyo trend line-ka iyo in rulesku ay iswaafaqaan markan halkan uu price ku marayay ee la soo diray waqtiyada soo socda waxaynu sugaynaa in la jebiyo balse ma aysan dhicin qiimihii wuxuu aaday kor buu aaday kor ha aado micnaheedu maaha in uu noqday inactive trade-kii la soo diray oo waqtigiisii dhacay waxaa sugaysaa rulesku mar haddii ay isku waafaqaan trade-kaasi waa geli kartaa kor hoos buu soo dhacay haddana kor buu aaday waa kan markuu jebiyey okay trend line-keena aynu sii durgsano haddii aynu sii jiidno waxaynu arki in aakhirkii waqti ka dambeysa in la jebiyey trend line-kii waa ujeedaan meesha laga jebiyey waa bartaa weeyaan trend line-kii halkaasaa laga jebiyey candlekaas marka uu ku xidhmay bartan candleka bartaa ku xidhmay ee jabay ayaa inoo samaynaya confirmation-ka marka aynu helnay waxaynu eegaynaa in qiimihii suuqa market-ga oo ah number 2 in aynu eegno in uu ka hooseeyo the zero line-ka zero line-kana waxa weeyaan waa line-kaas halkan ku sawiran line-ka dhexe weeyaan waxyaalahan waxaa la yidhaahdaa histogram waa market-gii weeyaan kuwan saasa waa histogram halkan maraya suuqa saa u soconaya waxay sheegayaan momentum suuqa qiimaha yacni buyerska awood badan ku leh mise sellerska baa awood badan ku leh zero line-kuna waa meesha dhexdeeda haddii ay kor u dhaafaan momentumku micnaheedu waxa weeyaan kor buu jiraa haddii ay hoos jiraanna momentumku waxa weeyaan hoos buu jiraa oo suuqa sellerska ayaa ku xoog weyn labadan line waxa weeyaan mid waxa la yiraahdaa MACD line midna waxa la yiraahdaa signal line iyaga sida MACD-ga trade loogu sameeyo iyadu waa baab gaar weeyaan iyada hadda ma rabno inaan saa isku dil istaagno laakiinse waxaan rabnaa waxa inaga khuseeya markaynu isticmaalayno MACD-ga inaynu eegno waxa inaga khuseeya histogram-kan hadda idin sharaxayo kan ma aha waxa inaga khuseeya waxa weeyaan waa line-kan weeyaan labadan line midna yahay blue-ga midna yahay orange-ga labadan line baa inaga khuseeya waa kan markii la soo diray qiimahan markii uu rulekii waafaqay oo number 1 uu jebiyey waxa la yiraahdo trend line-kii qiimuhu wuxuu marayay bartaa okay waxaynu eegaynaa rulekii waafaqay uu inoo waafaqay markasta khasab maaha marka trend line-ka la jebiyo iyo in ay isku beegmaan
marka uu labadan line MACD iyo signal line-ka ay cross garaynayaan hoos ay u cross garaynayaan zero line-ka khasab maaha in halka aad ku aragtid laakiinse muhiimaddu waxa weeyaan labadan line zero line-ka ma soo jebiyeen oo ma ka hooseeyaan waxa la yidhaahdo zero line-ka ma ka hooseeyaan way ka hooseeyaan markii la soo diray line-kan huruudda ah halkan buu marayay waana kan uu ka hooseeyaa labadii line MACD-gii aniga la maqlaa arday marka hore waa salaamaya meel aad joogtaanba waa macallin maxamed jaawiyaan macalinka uu ka go'ay ayaan u malaynayaa codkii soo maqashaan YouTube-ka waxaan filayaa in uu ku jirana sahal software ma hubo laakiinse waayahay waa kan xiisadan ayaan ku duubay oo ahayd January 13keedii 2019 oo Bounceback sida u shaqeeyo iyo warbixin badan aynu kaga hadalnay hadda markaa ma rabo in aan aad isku dul istaago qaabka uu u shaqeeyo Bounceback videogaas IML Bounceback strategy of Somali haddii aad ku qortid waa heli kartaa muxuu sida loo isticmaalo xoogaa hadda intermediate ahaan baynu wax u sharaxaynaa marka waa yahay aan ka socdo okay haddaan ku soo noqdo tan muhiimadeedu waxay ahayd in aan rabno inaan eegno dadka qayba waxay weydiinayeen haddii Bounceback la soo diro kadibna waqti kadib aanoo sugaya in train line-kii la jebiyo uu suuqu dhinacu markii hore u socday suuqan hadda uptrend buu ahaa hadduu sidiisii ku sii socdo maxaan samaynayaa marka saasaan ugu talagalay inaan u sharaxo oo ay tahay haddii markasta ruulka uu ku waafaqo in aad trade-ka geli kartid inta uu ku jiro xitaa haddii ay halkan imlbounceback.com-ka ay ka tahay no longer valid uu iska soo qoraa badanka marka uu trade-ku waqti badan uu ku jiro IML-ka waayo haddii kale meeshu trade-ada aad u fara badanaya waxaa lagu soo reebaa kuwa ugu dambeeya amba aad loogu soo reebaa waayahay sidoo kale AUDJPY waxaa jiray trade la soo diray saaka lixdii aroornimo baa la soo diray waa kan sell on AUDJPY around 0.79.409 time frame-ka 60 minute-ka 1 hour-ka ama ah in aad la socotid lacagta AUDJPY qiimaha aaga ay marayso aad ka geli kartid ay ugu badan tahay potential waxa la yiraahdo buy ama sell awoodda ugu badan muxuu ahaa sell ahaan inay jirto uu ku sheegaya
marka waa kan AUDJPY markaad isticmaalaysid scannerkan website-ka IML dhexdiisa ee imlbounceback.com badanka wixii aad ku analyze garayso way kaa baxayaan marka waxaa fiican in aad trading view-gaaga aad ku sawiratid indicatorskan inaad trading view-gaaga ku sawiratid ba aad u fiican indicatorkuna waa kan waxa weeyaan waa MACD-gan qofkii hadda u baahan screenshot wuu ka qaadan karaa settingkiisaan tegayaa waa kan MACD waa 12.26 close 9 labadan kale symbol MA iyo symbol MA signal line iyo oscillator midna ma saarna waxa la yiraahdo tick ma saarna bal aan hubiyo intaan ku soo noqday ma check gareyn bal codkayga si wacan loo maqlo fadlan hal mar ku soo celiya hadaad si wacan u maqashaan 111 aad baa mahadsantihiin aad iyo aad baa mahadsantihiin waayahay styleka waa colorska weeyaan la isticmaalayo colorska saa doonta aduu ka dhigan kartaa laakiinse haddaad rabtid colorska la isticmaalayo bounceback uu isticmaalo iyadana waa sidaa weeyaan screenshot waa ka qaadan kartaa halkan histogramka waa tigaranaysaa MACD-ga signal line saddexdaba tigtaa saaraysaa histogramka waa isku wada color labadana waa blue iyo orange okay waa inta haddii aan ka gudbo tradekan saaka waxaa la soo diray 6dii saan idin sheegay waxaan calaamadiyey falaadhan yar baan dul saaray waa kan waxay sheegaysaa saacaddu 6dii saaka way ku beegan tahay candleka ku beegan baan dul saaray saa u jeedaan candlekaas baan dul saaray si aan u calaamadiyo tradekan markii la soo diray qiimuhu xaguu mareeyay haddii aad ka soo raagtay dabcan sidoo kale waxaa eegaysaa AUDJPY time framekeedu muxuu ahaa waa 60 minute hadduu yahay waxa ku xiga waxa ugu horeeya oo aan samaynayna waxa weeyaan 1 hour baa lagu soo analyze gareeyay 1 hour waa kan waxa lagu yiri suuqan sell ahaan buu noqon doonaa AUDJPY markii la soo diray qiimuhuna wuxuu marayay 79.409 iyadana haddii aynu trendline yar aynu ku calaamadino okay oo u dhow qiimaha xilligii la soo diray ayahay saade sitting 79.409 labada dhinacba say isku leekaadaan si meesha saxda ah okay trendline-ka yar waxaan ugu talagelayaa in aan ogaado qiimaha markii la soo diray qiimaha meeshu marayay taasina waqtigii la soo diray weeyaan kana qiimaha meesha saxda uu marayo waan ugu talagalay inaa wax kasta calaamasta aad buu fiican tahay okay 1 hour haddii uu bounceback ku soo analyze gareeyay ruleka number 1 wuxuu noqon doonaa in aan fiiriyo laba time frame ka yar inaan hoos u dego laba time frame maxaa ka yar markaan MT4 ka isticmaalayno oo aanan isticmaalayn waxa la yiraahdo trading view-ga markaan isticmaalayn MT4 ka waxa ugu hooseeya 1 minute uu leeyahay laakiinse 3 minute ma laha 5 minute baa ku xiga 15 minute baa ku xiga 30 minute baa ku xiga laakiinse trading view 45 minute ku siinaya ma laha 1 hour baa ku xiga 2 hour 3 hour na ma laha MT4 ku 4 hour buu sidoo kale leeyahay day week 1 month inta uu leeyahay marka sida MT4 ka inagoo qaadanayna 1 hour waxa ka hooseeya 30 minute na waxa ka sii hooseeya 15 minute marka ka labaad baynu isdul taaganaa aan rabnaa in aynu wax ku analyze garayno waayahay trend line-keenii aynu saarano rule number 2 weeyaan marka 15 minute ka aad timaado trend line-kaagan saaro waayahay maxaynu u jeednaa suuqan laba jeer hore in uu trend line-kan ama 3 jeer uu taabtay 1 2 3 4
markii shanaad ee uu suuqu barta marayay wuxuu kuu soo diray IML bounce back oo ku leeyahay markan waxay u badan tahay suuqu in uu downtrend noqdo uu dhinacu u socday mooyaan hadda uptrend ahaan buu muddadan yar ku soo dhex jiray markaynu 1 hour ka xisaabinayna weeyaan waxa laga yaabaa time frame-yada kale in uu ku siiyo sawir ka duwan uu ku yiraahdo suuqu downtrend buu yahay laakiinse inagu waxaynu xisaabinaynaa time frame-ka IML bounce back uu ku soo analyze gareeyay markaas u jeedo waa uptrend buu suuqan ku socdaa trend line-kana uu saaran yahay halka markuu marayay waxa lagu yiri potential sell ama awood badan oo sell ah ayaa laga yaabaa in ay halkan ka timaado markaas waxaad samaysaa u diyaar garow be alert aad ugu diyaar garow baa lagu leeyahay waa yahay halka markuu marayay suuqu uu la soo diray anigu maxaan sugayaa setup-kaygan sii diyaarsanayaa waa kan trend line-kii baan saartay waxa la yiraahdo waa kan MACD-gina uu ii joogaa halkan uu marayaa MACD-ga markasta uu qiimuhu jabiyo waxaan sugayaa inuu isna ka hooseeyo okay rule-ka koowaad markan trend line-kan rule-ka labaad baan u jeedaa trend line-ka saarto rule-ka saddexaad wuxuu noqonayaa in trend line-ka la jabiyo hadda saad u jeedaan qiimahan trend line-kii wuu jabiyey trend line-kii markuu jabiyey candle aad u weyn waa trend line-kii jabiyey waxaa laga yaabaa candle-kaas badanka waxa fiican si aad confirmation fiican aad u heshid trend line candle-kan jabinaya wax in uu ku xidhmo trend line-ka hoostiisa inuu ku xidhmo weeyaan haddii kale waxaa dhici karta candle-kii oo aan xidhmin in uu hoos u socdo markuu meelahan marayo uu haddana gadaal u noqdo uu intan dambe wick ku sameeyo saad u taqaanaa wickan boodigiina uu xagga sare maro dabadeedna uusan jebin trend line-kii uu qiimuhu uu korkiisa ku sii socdo laakiinse muhiimadda waxa weeyaan markasta inaad sugto qiimaha candle-kan meesha lagu xidhayo saan u jeedna candle-kan halkan baa lagu xidhay markii la xidhay maxaynu sugaynaa waxa la yiraahdo muhiim waxa weeyaan trend line-kii in la jebiyey confirmation-kii waa haysanaa confirmation-ka labaad waxa weeyaan in aynu eegno meesha uu kaga beegan yahay aan calaamadiyo haddii kale ishaada waaba ka arkaysaa baadan calaamadin halkan markuu marayay oo halkan ka jebiyey labadan line zero line-kan ma ka hooseeyaan haddaan weynaysiiyo okay labadan line zero line-kan ma ka hooseeyaan jawaabtuna waxa weeyaan ha waa ka hooseeyaan markaas waxaan haysanaa confirmation kale waayahay halkaas ayaynu haddaba ka gelaynaa trade-ka meeshaan ka gelayno waa halkaa weeyaan bartaadanu ka gelaynaa okay waxaan u baahannahay hadda trade-kan markii uu sameeyey oo halkan la soo jebiyey wuxuu sameeyey retest waxa la yidhahdo ama wuxuu dib u soo tijaabiyey trend line-kii wuu jebin kari waayey trend line-kii kor buu ugu noqon kari waayey wuxuu ku noqday markan resistance buu ku noqday marka hore saa u jeedaan muxuu ahaa trend line-kani muxuu qiimuhu u ahaa 1 2 3 4 intaasoo jeer support buu ahaa qiimuhu wuu imaanayay wuu ku nasanayey kor buu u noqonayay laakiinse markan muxuu noqday qiimuhu wuxuu noqday resistance buu noqday markii la soo jebiyey retest buu sameeyey dabadeedna gadaal buu soo noqday qiimaha sidii suuqa laga filayay buu noqday okay qiimahan halkan intee buu socday inagu markii la jebiyey candle-kan haddii aynu ka galno qiimahan hadda wuxuu marayaa 8 bib buu hoos soo socday waxaa laga yaabaa haddii aad geli lahayd intan yara retestiga ah inaad aragtid oo ah 35 bib kadibna uu qiimuhu sidiisu u soo noqday haddaad weligaa gelaysid trade oo trend line-ka la soo jebiyey ha ka baqin haddii uu dhinaciisa ku noqdo waayo wuxuu samayn karaa waxa la yidhaahdo retest intuu uu soo tijaabiyo haddana uu soo noqdo sida uu hadda sameeyey marka
haddii trend line trade kan aynu eegno bal take profit iyo stop loss ka meeshaanu dhiganayno waxa laga yaabaa in xogaa stop loss aad inoogu bato haddii aad aragtid trade-ka inuu stop loss-kiisa trade markaa gelaysid waa inaad ogtahay inta aad khasaari kartid riskigaaga inta aad geelin kartid haddii aad aragtid trade-kan in uu qaadanayo waqti yani waxaan u jeedaa bibis aad u fara badan oo stop loss ah inaad siinaysid waxaa fiican inaad trade-ka aad faraha ka qaadid haddaynu eegno marka bounce back la joogo waxaa la yidhaha swing low ama swing high meeshii hadda ugu saraysay oo uu qiimuhu muxuu ahaa ka soo dhacay embalsi waynu odhan karnaa haddii aynu si kale u dhigno meeshan highgan ugu dambeeyey oo la yidhaahdo hadda muxuu noqonayaa kani lower highgan oo ka hooseeya qiimihii ka hooseeyey halkana ugu saraysay kana ugu sareeyey kan muxuu noqonayaa kan high uu ahaa kan muxuu noqonayaa lower high kana muxuu noqonayaa waxaan ujeedaa lower low lowgii hoose uu kasii hooseeya lowgan uu ka hooseeya waa lower low weeyaan kana muxuu noqonayaa lower high oo highgan sare buu ka hooseeyaa okay inagu stop loss-keena kaas ayaynu ka dhigan karnaa marka haddii aynu xisaabino intee bib ayay naga qaadanaysaa trade-kan haddii aynu halkan ka geli lahayn ilaa iyo halkaas aynu stop loss-keena dhiganano waa 80 bib weeyaan 80 bib aad bay u fara badan tahay bounce back-ga mostly haddii uu yahay trade-kan 1 hour hadduu yahay ilaa 25 bib ilaa 30 bib ilaa 20 bib hadduu ilaa 40 bib iska dhe baa ka raadin kartaa marka time frame ba ku ka wan yahay wuu ka bibis badan yahay marka maadaama uu 1 hour ahaa stop loss-kiina uu nagaga dhacay 80 bib trade-kan waa isaga tegaynaa inaan isaga tagno ayay ku qurux badan tahay waayahay haddii aynu eegno hadda signalkii ugu dambeeyey oo ahaa USD CHF time frame-ka lagu soo analyze gareeyey oo 4 hour 240 minute baa ku qoran oo ah 4 hour okay USD waa maxay USD CHF on the waayahay time framekiisu muxuu ahaa waa 4 hour weeyaan 4 hour markaynu joogno MT4 laba time frame waa nidhi ka hooseeya waa in la isticmaalaa labada time frame maxay noqonayaan 4 hour ka hooseeya waxa weeyaan 1 hour iyo 30 minute marka 30 minute-ka ayaynu tegaynaa okay 30 minute-ka haddii aynu tagno okay labada fiiq isku xidh labada fiiq ilaa ka uu gaaraya wixiskiisu okay marka ugu horeysa waxaynu sameynay laba time frame ayaynu hoos uga degnay time frame-kii IML bounce back uu ina siiyey horta mid yar aan idinku baraarujiyo ardayda cusub ee bounce back aan la socon arday maalintu su'aal soo weydiiyey oo u haystay in aynu suuqa si muxuu ahaa caadiga aynu productigan inagoo aan isticmaalayn inaa wax analyze garanaynay marka lala socdo qofkan waxaan anu hadda sharaxayo ma aha chart caadiga ma aha waa bounce back signalada ama trade idea oo soo diray weeyaan waxaan signal caadiga ma aha oo take profit iyo stop loss-kiisii wata waxa lagu siinaya waxa la yiraahdo trade idea yani oo ah lacagtaas waxay u badan tahay in ay buy noqoto waqtiga hadda soo socda iyo inay sell noqoto rules baa lagu siiyey ruleskaas hadday iswaafaqaan 90% ama 95%
ayaad ku guuleysan kartaa trade-kaaga. waayahay intaan USD CHF intaanan gelin waxaan rabaa AUD JPY oo aan wax yar ka tegay in aan ku yara noqdo. waayahay hadda halkan maxaa u jeedaan IML bounce back markaan trade aynu ku jirno candleska say u egyihiin waa u muuqataa. candleska noocan ah maxaa la yidhahdaa waxaan rabaa inaad chartka ku soo qortaan candleskan magaciisa. candlekan magaciisa candleskan bounce back ku yaala magac baa loo yaqaanaa. magaciisa ayaan rabaa in aad sheegtaan. okay maxamuud wuxuu soo qoray waa Hakinashi uu saxan yahay laakiinse qaab af Soomaali ah uu soo qoray. yaa garanaya sida saxda ah ee English ahaan loogu qoro Hakinashi? wala isku dayo Hakinashi inuu qof si fiican ugu soo qoro. Hakinashi ma waa Hakinashi. bounce back waa la gadanayaa $16 baa la siiyaa. Hakinashi waxaan maleynayaa inaan la garanayn. maxamuud baa soo qoray isna okay libaaxa. okay libaaxa ayaa saxay. Hakinashi aad baa umahadsan tahay libaax. waayahay waa Hakinashi baa la dhahaa. Hakinashi wuxuu ku siinayaa weliba waxaa si wacan u sharaxayaa Hakinashigan qaabka si wacan trade-ka confirmation-kaaga weliba ugu darsan kartid. Dr. Spiller oo wada garanaysaan saa u jeedaan YouTube-kiisa waxaa la yidhaahdaa Universal Trade House. Universal Trade House baa la yidhaahdaa. haddii aad geshid wakaa qaybta videoska aad tegtid maxaa u jeedaa halkan. okay Hakinashi Bitcoin how to trade install 72 our system how to build the trade kings efficiency. okay waxay la tahay odaygu wuu ka saaray casharkan wuu ku jiray fiidiyoyadiisa Hakinashiga laakiinse waxaan u maleynayaa hadda iima muuqdo inuu ka saaray baan u maleynayaa. I don't know wuxuu uga saaray. okay Universal Trade House Hakinashi. okay haddaad doonto YouTube-ka haddaad ku qortaan how to trade with Hakinashi candlesticks xoogaa information xoogaa ka badan oo sida loo isticmaalo ayaad ka heli kartaan. Hakinashiga qaabka u shaqeeyo wax yar uun baan anigu isdul taagayaa. waayahay Hakinashiga saa u jeedaan waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa candle momentum ah. momentumna waxa weeyaan sidiisa momentum aad aragtid يعني wax momentum ka sheekeynay waa awoodda ama xamaasadda suuqu dhinacay u badan tahay. saa u jeedaan candleskiisu iskuma qasna sida normal candleka ay isugu qasan yihiin. aa u jeedaan hadda intan oo kor u socota oo candladan oo wada bullish ah intaasi waa cagaar casaan baa soo dhexgalay cagaar casaan cagaar saasuu isugu dhex qasan yahay. laakiinse markaynu joogno Hakinashi waxaad arki kartaan suuqu markuu cabaar cagaar ku socdo oo uu intaa yahay in uu casaan xoogaa ku soconayo cagaar haddana saa u soconayo casaan uu saa yahay. micnaheedu waxa weeyaan markasta awoodda qoladan ayaa iska leh. hadda intaas casaanka ah micnaheedu waxa weeyaan kandhaladan waaweynna awood aad u fara badan baa ku jirta weeyaan muhiimadeeda. kandhaladan yaryar ee Hakinashiga kuwa Hakinashiga indecisionka ama transition candleska la yiraahdo waxa weeyaan baa iyana qayb kamid ah. waxaasoo dhan waa arki kartaan sida loo isticmaalo YouTube-ka haddii aad xog badan ka sii raadisaan.
markaas trade kan hadda AUDJPY-ga haddii aan u bedelo candleska Heikin Ash haddii aan ka dhigo waxa u jeedaa laakiin qiimahan waliba aan calaamadiyo candlekii soo jebiyey candlekii qiimahan soo jebiyey waa candleka weyn weeyaan laakiin Heikin Ash-ga markaan u imaado wakaas waa candleka weeyaan wuxuu muujinayaa inuusan soo jebin wigiisiba laakiin si soo gaaray waka intii ka dambeysay halka aynu ka soo galnay laba candle oo waxa soo dhex galay cagaar ah labada candle waa labadii candle ee aan sheegaynay ee aan lahayn waa retest qiimaha trend line-kii ayay soo jebiyeen intaas wuxuu ka dhigay bahalkii retest hadda haddaynu sii eegno qiimuhu weli sida uu sii socdo oo aragtaan weli suuqan waxaad momentumkiisii waa bearish weeyaan hoos buu u sii socdaa selleriska ayaa weli awood leh marka tradekan saa u geshid waxa fiican markasta inta aad red candleskan haysatid inaad tradekan ku sii jirtid ayaa fiican okay inta haddii aan kanda Heikin Ash-ga aanan ku raagin intaasaan ugu gudbayaa waxaan isku dayaa dhowr lacagood inaan yaro eegno waliba aan ku yaro dhaqsano USD CHF onda okay waa kan USD CHF waxaanu saarnay trend line-kii baynu saarnay qiimaha markii la soo diray meelahan uu marayay weli waxaan u jeednaa hadda weli waxba ma calaamadinayo waayo waxaan u jeedaa weli trend line-ka shaki igama jiro weli trend line-ka in la jebiyey waxaan eeganayaa waa in trend line-kan uu qiimuhu ka dhex baxo markuu ka dhex baxo meelahaas oo kaleeto markuu jebiyo haddii uu halkan toos u socdo inaan meelahaas oo kale ka galo stop loss-kaygana aan ka dhigto ilaa iyo halkan ugu sarreysa meesha ugu hooseysa hooseynta kan ma rabno waxaan rabnaa kani waa lowgii weeyaan kanna waxa weeyaan waxaan odhan karnaa waa low high weeyaan high low weeyaan marka high lowgan baynu ka dhiganaynaa waxaan hadda high lowgan haddii aadan fahmayn casharada IML Academy basic ah waxaasoo dhan ku jiraan qof kasta ku dadaalo xiisadahan soo gelaya waxa laga yaabaa inay iska advanced meelaha iska yihiin productyada IML ee lagu sharaxayo waxa laga yaabaa keywords dadka cusub inaysan fahmayn laga yaabo inay adeegsano oo qofku ay tahay inuu barto waayo qofku markasta qof Soomaali waxba kama baran karo waayo wuxuu yani mararka qaar buu fiidiyoyay waxyaalo kala daawanaya marka waxyaalaha vocabulary-yadan forex-ka lagu isticmaalo in aad baratid aad ayay muhiim u tahay marka stop loss-keena waxaynu ka dhigan karnaa ilaa iyo meelahan take profit-keena waxaan ka dhigan karnaa at least resistance-gan ayaynu ka dhigan karnaa haddaynu doono way la sii socon karnaa this resistance kan resistance-gan kale waynu ka dhigan karnaa kaa kale ama kan waxaasoo dhan waa wada resistance ama kaa inta qiimaha suuqa saa ula socon kartid marba stop loss-kaaga soo take profit-kaaga meel fiican haddaad doonto waa ka dhigan kartaa haddii kale targetkaaga inkastuu yahay muxuu ahaa kani 4 hour bibis fiican baa ku jira 4 hour-ka dailyga waliba inkastoo bounce baagu dailygu uusan ku badnayn ugu markasta time frame ba midku ka yaryahay trade-ada lagu soo diray isaga uga sii badanaya hadda 60 minutes 240 kan waa 1 hour dailyga soo martay halka mid kaliya maalmahan oo dhan kaga jiray 4 hour-ka waxa u badan 1 hour-ka waliba waxa u sii badan 1 hour-ka okay qiimaha waxaan sugaynaa confirmation-ka koobaad oo ah in la jebiyo ka labaad oo ah in qiimuhu uu halkan ka soo dhex baxo uu kor ka soo aado hadda seen u jeedno qiimuhu ka sareeyaa mid baa ka dhex baxay labadii line kii kale weli uu ka hooseeya ama hadduu la siman yahay laakiinse waxaasoo dhan xitaa haddii uu labaduba hadda ay ka wada sareeyaan muhiimad inooma laha sababtoo ah lama jebin waxa la yidhaahdo
trend line-keeni lama jebin muhiimaddu waa taa weeyaan number 1 trend line hala jebiyo number 2 eeg in uu muxuu ahaa labadan line ay ka sareeyaan zero line-ka intaa haddii aad heshid trade-kan waa qaadan kartaa okay waxaan ku xijinaynaa euro GBP pound haddii aad tahay qof isticmaalaya IML bonds baa kulley anigu sidaan u isticmaalo halka markaad tusaalahaan ku qortin euro GBP hadda waxaa laga yaabaa brokerka caadiga aan ku analyze gareeyo markaan isticmaalin bonds baaga FXCM la yiraahdo kaas ugu sareeya xitaa adoon ku dhufan hadda enter trade automatic bu FXCM ka ku geynaya haddii aan ku dhufto waxa iigu sawiran saa u jeedaan waxyaalo kale waxa iigu sawiran analysis kale iyo waxbaa iigu yaala marka waxaan u isticmaalaa waxa la yiraahdo broker kalaan isticmaalaa oo la yiraahdo euro GBP si analysis aysan isku dhexgelin ama charti waxyaalo badan aan isugu qasqasmin okay on the waxaan isticmaala brokerka la yiraahdo wixii bonds bag ah inaan calaamadsado in aan analyze-ka ku samaysto okay markaan soo eegno euro GBP waa 4 hour weeyaan waxa loo yiri buy samee 4 hour-ka waxaanu tegaynaa 1 hour-ka wayna ka boodaynaa 30 minute-ka ayaynu aadaynaa 30 minute-ka inta aynu hadda xiisada ku jirno haddii aynu aragno wax trade ah oo inoo bisil oo aynu qaadan karnaa waa yahay okay haddii fiiqyada aynu isku xidhno fiiqaas iyo fiiqan haddii aynu isku xidhno markuu soo diriyay bonds bagan qiyaas ahaan meelahan buu ahaa waxaa lagu sheegay qiimahan horta inuu yahay down trend xitaa haddii aynu gelino muhiimadeenu xitaa maaha inaynu channelsi aynu wax gelino laakiinse haddii aynu isaga eegno channelski laftirkeena inuu qiimahani uu hoos usoo socday uu down trend muddadan yar ee kooban inuu down trend kusoo socday loona malaynayo haddii uu qiimahan trend line-ka uu jebiyo in uu muddo intay doontaba ha noqoto jihada uu bedeli karo uu xoogaa uptrend ah uu geli karo markaas muhiimadda ugu weyn ee trend line-ka waa taa weeyaan hadda qiimayna halkanu sugaynaa qof kasta chartigiisa euro GBP uu ku calaamadsan karaa sidii screenshot-ka uga qaateen MACD-gan uu samaysan karaa qaabkan aanu hadda u samaystay waa aniga hadda sheegay screenshot baan rajeynaya inaad ka qaadateen qofkii inooga qaadayna groupkeena online classka wuu inoo soo gelin karaa haddii laba mid aynu helno in qiimaha trend line-kan la jebiyo uu qiimuhu soo gaadho meelahan uu soo gaadho qiimadu meelahan soo gaadho ama meelahanba trend line-kan muhiimadeedu in uu qiimuhu ka dhex baxo uun aynu aragno isla markaana aynu aragno in MACD-ga uu qiimuhu halkan labadan line ay ka dhex baxeen zero line-kan haddii ay ka dhex baxeen oo kor ay ka mareen labada confirmation keliya ayaa nagu filan waa euro GBP waa yahay euro GBP iyadu weli weeyaan markii haddii ka socono sidoo kale GBP USD signal aad u fara badan ayaa maanta bounce back u soo diray maalin baa laga yaabaa inuu mid soo diro hadda maanta 8 buu soo diray maalin loo soo diro hadba suuqa iyo set up-kiisa bounce back-gan uu isticmaalo ay marka uu helo ilaahu may 100 signal ahaato uu soo diraya marka haddan waxaan eegnaa GBP USD khadkan muddo inuu iga yara culus yahay marka hore wii fiicnaa
refresh garay khadkii culays baa madaa inuu keenay okay GBP USD come on Cabdiraxmaan marka uu baa yahay line kor baa laga dhigaa hoos baa laga dhigaa adu maxaa tiri ustaa marka uu baa yahay line kor ayaa laga dhigaa may markuu baa yahay line hoos baa laga dhigayaa marka uu sell yahayna kor baa laga dhigayaa hadda saa u jeedaan qiimahan signalkan euro GBP wuxuu soo diray signal sell ah meeday waxaan u jeedaa signal buy ah marka qiimaha maadaama uu hoos u socday weli intii halkan trend line isagoo aan jibin hoos ugu sii socon karaa marka kor ayaynu ka dhigaynaa kadib waxaynu sugaynaa in kor loo jibiyo trading fee wax igaga dhacay garamayo waa kan hadda si wacan buu igu shaqeynaya okay GBP USD waqtigeennina wuu iska dhow yahay GBP USD baynu kusoo gabagabeynaynaa kan mar horaan basi analyze gareeyay baan u malaynayaa GBP USD wuxuu ahaa 4 hour buu ahaa 30 minute kan jooga trend line-keygii baan sawirtay okay hadda waxaan u jeednaa GBP USD in uu jebiyey waxa la yidhaahdo trend line-kii candlekaas redka ah weli si wacan hoostiisa uguma xidhmin kan baa socda kan haddii uu signal candlekani uu meel fiican soo gaadho uu si wacan ugu xidhmo waxaan rajaynaynaa in uu si wacan uga dhex bixi doono marketdiga waa calaamadsan kartaan hadda GBP USD 30 minute waa la socon kartaan haddii uu qiimahani soo dhex galo halkan hadda mid baa soo dhex galay kan kale haddii uu soo galo candlekanna uu hadda wuxuu muuqata in uu jebiyey waayo trend line-kan uu ka hooseeya maadaama uu ka hooseeyo waa candlekan waa inaynu hubsannaa in uu kor u noqdo iyo in uu si wacan xaggan hoose trend line-ka hoostiisa uu ugu xidhmo waxyaalaha price actionku aad buu muhiim u yahay sideedaba candle socda lama galo haddii aad dhigateen buuggan candlestick price actionka waxaan u jeedaa candlestick trading bible buuggaasi wax badan buu tradingka ka bedelaya haddii aad si wacan u dhegaysatid candleska iyo si u dhaqmaan iyo patterniskooda iyo Fibonacci iyo waxyaalo badan oo candlestick baad ka baranaysaa marka hadda candlekan way sugaynaa inuu si wacan ugu xidhmo sidoo kale in uu kasoo dhex baxo marketdigan ayaynu sugaynaa haddii waqti ma haysano aynu zoomka kusii jirno qof kasta wuu sii eegi karaa haddii ay ka dhex baxo tradeka heli karaa stop losskiisa wuxuu ka dhigan karaa meeshan sare buu ka dhigan karaa take profitkiisana ilaa iyo meelaha uu ka dhigan karaa noqon karta stop losskiisa haddii uu candleku tusaalaha meelahaasoo kale ku xidhmo okay waa aad buu badan yahay waa 60
waa 64 bib sababtuna ay tahay in uu ahaa tradekiini 4 hour saynu sheegnay marka uu time frame kasta ku ka weyn yahay wuu ka bibis badan yahay take profitskiisa iyo stop losskiisa okay halkan hadda maxaynu u dhig halkan haddaynu eegna hadduu 64 noqday stop losskeena take profitkeena inteeba noqon karaa take profitkeena 120 muu noqon karaa take profitkiisana haddaad doontid waa kasoo yaraysan kartaa aday ku jirtaa waayahay insha allah intaas waxaynu kusoo gabagabaynaynaa xiisadeennii wixii su'aalo ah kolley 2 minutes baa hadhay wixii su'aalaha ayaynu qaadan doonaa insha allah okay signalada bounce back miyaan loo soo dirin groupka كل واحد كحول أنت قفك استعمال أنا واستعماله mostly bounce back كم بني لكن س وحن كأكتا مكان trade idea عن هلا وحبلن بيعاوية عن trade قاعدين كرو مرة وصادرة بعدين كمصادرة خليه يابا إنه أنا قلفت كي إضافة أوكي واحد سؤال ما لغباه ها اوكي وهي سؤاشاas ugu dambaysa wax ka dambeeya hadda uma jeedo waxay la tahay insha Allah in ustaad Goldicap iyo bounce back maxay kala duwan yihiin Goldicap waxa weeyaan waa product gaar ah oo isna gaar loo iibsado oo ay email ay leedahay Goldicap baa la yiraahdaa kana bounce back baa la yiraahdaa Goldicap kuna istiraatiijiyad gaar ah uu leeyahay bounce back-guna wuxuu leeyahay istiraatiijiyad isna gaar u ah uu leeyahay marka labaduba waxay ku siinayaan trade idea signal ma waa trade idea Goldicap waa sell limit weeyaan waa bending order buu ku shaqeeyaa kana waa market execution oo ah marka aad confirmation kaaga heshid inaad geli kartid laakiin Goldicap-ku waa bending order waa sii gashanaysaa haddii ruleska Goldicap-ku uu ku waafaqo kadibna waad faraha ka qaadaysaa take profit iyo stop lossna isagaaba ku siinaya kan laakiin take profit iyo stop loss ku siin maayo waa lagu barayaa laakiin sida loo qaato hadda waxaa u jeedaa candlekan GBP USD muu soo jabiyey laakiin se weli kuma xidhmin hadda kor buu u sii socdaaba kan meesha ku xidhmaysa martid candle-kani like hammer weeyaan beam bar marka confirmation kuma qaadan karno haddii candle awood leh uu ahaan lahaa full ah oo si fiican ugu xidhma bartan wuxuu inoo noqon lahaa confirmation fiican oo aan trade-ka ku geli karno weli waxa u jeedaa in uusan weli xitaa candle-kii kale line-kii kale inuusan ka dhex bixin meeshiisii uu marayo waayo wax difference ah oo badan candle-kaasi ma soo kordhin laakiinse weli trade-ku waa valid weeyaan haddii uu hoos u sii socdo uu meelahan yimaado okay weeyaan waa la geli karaa confirmation-kana uu ku waafaqo okay insha Allah wax su'aalo dambe inaysan harin bay la tahay waa salaamantihiin dhammaantiin xiisadeennii intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa ardayda inoogu cusub fideogii markii dhaweyd aan soo qaadanayna insha Allah ha soo daawadaan si ay xiisadaha caadigeena inoola jaan qaadaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu